runtii waxyaabaha fiican oo in lagu fakaro ay tahayna waa run wixii wanaagsan in muxuu ahaayay la isku dhiirigeliyana waa u baahana sababtu waxa weeye waxaaga cisho waxaaga ilaasho ceeb maaha annagu Puntland ilaahay wuxuu ugu caana weynay waxa kamid ah waa daacadnimo baas leeyahay markay waxa cidna ma dulmiyaan ayagoo cid u heshiinayo oo leh muxuu ahaayay cidaas la dhibaatay anu waligay ma arag waagi Puntland aan xamar ka soo qaxnay oo anagoo faramaran oo aan waxba aan haysan oo wax alla waxaan haysano dhan ka soo tagnay aan halkaan nimid dekadaas yartaa taalay Soomaaliya oo dhan waxba uga digi jiray saas ay tahay cid alla cidii timaada qaar aan ogeyn waxa ay sameeyeen waxba laga siin jiray waligeed cid xuma diidin waligeed cid ma fogeyn waligeed cid ay dhibaataysay ma arkin aniga kulli intaan soo joogay marka in aan waa intan ilaahay ugu caana weyneeyay boqol mu'amaraad oo loo sameeyay ilaahay baa ka fikiyay wuxuu nooga fikiyay waxa waa daacadnimadaas ma dhahayno xal dhalay baan nahay oo reer Puntland waxa weeyaan waxay sameynayaan oo dhan waa fiican yihiin maaha laakiin waa la sheegayo idrisna waa sheegay wuxuu labaha la kala saaro war Puntlandnimada iyo khilaafka iyo madaxda iyo qof nacaybka aan kala saarno aniga waligay dawlad ma mucaaradin never ma magaca ma mucaaradin wax dan oo aan isleeyahay waa ka rabtaana ma jirto waa imaada garow hadda madaxweynaha noo jooga alxamdulillah oo ku faraxsanahay waa madaxweynihii dadka doortay qasabku muusan imaan intuu yimid meesha kuma fariisan dad baa doortay waqti buu haystaa haddii waxa taa laga tabta anu waxa aaminsanahay dhalinyaro dhan inta isku habar wacato oo fariisato oo 10 bari 5 bari fadhido oo go'aamo soo saadho tiraado tanaan dhibsanayna waxa saarabna inaan sameeyno fursad ma haysano kanaan sameeyno anu waligay ma arag laakiin waa arkaa dhalinyaro Facebook ka maagtamaysa inkastoo aan Facebook aad u aqoonin haddana laakiin marka ishaydu ku dhacdo waa arkaa bal qof baa wax caayaya cidna ma maagayso wax fiican baa sheegaysa konta qof baa ku caayaysa waxa komentiyada ma fiirin baa ma aqoonsi loo fiirsho marka waxaan leeyahay su'aalahayga marka u soo noqdo